وديق إلهي دولة نمد وشرف عيدا نمد ودور بيليس نمد ودير الديران إيو حجابنا وحتى دليل أطير عبتي ونقول ضد مسكين كي وقورا كي دلمينا صحيرة الداعدي وداني نيمو دالكيو قهيقنا waxaan maanta halka ku duubaynaa barnaamijka la yiraahdo saaxiibka dadweynaha kaasoo ay bulshada reer Soomaaliland waxyaabo badan kaga faa'iideysan doonaan haddii Ilaahay ka dhigo oo hore uga qarsoonaa aniguna waxaan barnaamijka ku darsanayaa bahda ku shaqeysa iyo dad yow waxaan ahay bilis biicaad iibsanaysa iyo maalkaaga banaanka waran inka baangaha sitiyo tuugii ka boobila direeska badbaadiye bartaad joogtaba adiga nacabka kaaga beeganiyo inaan ahay baylaha tire bulshooy adiguna ogow waxaanu halkan idinku soo gudbin doonaa barnaamijkii saaxiibka dadweynaha ee ciidanka booliiska kaasi oo aan ugu talagalay in toddobaadkiiba hal mar aad ka daawan doontaan halkan barnaamijkan oo ah barnaamij aanu doonayno in aanu ku wanaajino isla markaana aanu ku xaqiijino xiriirka wanaagsan ee ka dhaxeeya bulshada iyo ciidanka booliiska wax qabad muuqda cadaalad daacadnimo iyo hufnaan si ay dadweynaha shacabka qofka dhibanaha qofka eedeysanaha mid walba xuquuqda uu leeyahay uu uga helo ciidanka booliiska waana barnaamij aanu doonayno in aanu bulshada ku tusno qalbi furnaanta daacadnimada hufnaanta iyo shaqada ay diyaarka u yihiin ciidanka booliiska taasi oo aanu ku wadaajinayno xiriirka u dhaxeeya ciidanka booliiska iyo bulshada wadadii gaableed ee uu xilka hayay taliyaha ciidanka booliiska maxamed saqali wuxuu dardargeliyay shaqada ciidanka booliiska haday noqon lahayd ka hortagii dambiyada haday noqon lahayd ka dabatagii dambiyada si loo soo qaban lahaa awaamirta uu bixiyay wuxuu ku soo saaray wareegtooyin kuwaasoo ku saabsanaa in la dabargooyo muqaadaraadka sida khamriga xashiishada salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan waa barnaamijkeennii saaxiibka dadweynaha dhowaan ayay ahayd markii taliyaha ciidanka booliiska uu soo saaray wareegtooyin fara badan isla markaana uu bixiyey awaamiir nuxurkoodu uu ahaa in si adag loola dagaalamo mukhaadaraadka gaar ahaan khamriga iyo xashiishadda kuwaasi oo la marsiin doono cid kasta oo lagu helo raadadkaasi mukhaadaraadka ciqaab adag oo aanay ka soo waaqsan karin iminkii haata waxaynu marti u nahay qaybta booliiska galbeedka Hargeysa oo maanta halkan ku soo bandhigaysa khamrigii xashiishadii faashashkii iyo waxqabadkoodii muddadii 2 bilood ee u dambeysay ay qabteen daawasho wacan waxaanu halkan ku soo bandhigaynaa waxqabadkii qaybta booliiska galbeedka Hargeysa iyadoo awalba ay waajibaadkeeda waqtiyadii horeba u gudanaysay si hufan oo wanaagsan waxay iyadoo qaadanaysa tilmaamaha iyo awaamirta taliyaha guud ay dardargelisay la dagaalanka mukhaadaraadka rabshadaha ciyaalka iska hor yimaada iyo waxyaalaha dambiyada had iyo goraale sababa qaybtu iyadoo runtii fulinaysa arrimahaas waxay soo qabatay muddooyinka 85 faash oo ah kuwan hor yaal oo isugu jira faashashka waaweyn midiyaha kuwaasoo ay ubadkeennu ay had iyo gooraale iyaguna wax isku yeelaynayeen bulshadana ay ku dhacayeen oo ku boobayeen 85 faash iyo 45 midiyood waxaa lagu soo qabtay 450 inan oo intoodii badnayd ay jeelasha ku jiraan waxna ay yihiin xukun sugayaal sidoo kale waxa ay booliiska qaybtu ay dardargelisay la dagaalanka mukhaadaraadka sida xashiishada khamriga iyo waxyaalaha la midka qaybtu iyadoo runtii habeen iyo maalin arrintaa kala dagaalamaysa bulshada mujtamaceena in lagu waxyeeleeyo waxay ku guulaysatay inay soo qabato xashiishadan in hortaal xashiishadan aad arkaysaan oo ah
shan iyo siddeetan xidhmo oo ugu yaraan nuskiilaan qiyaastii ilaa kiilo dhodhowey waad arkaysaan waxaa lagu soo guray oo lagu soo mooriyey jawaanada baradhada ee ka yimaada etoobiya jawaano basashaa lagu soo mooriyey waxaa weeye dhexdeeda ayaa laga soo saaray kowdiiyo barhkii habeennimo ayaa saldhigga koodbuuroo wato taliyaha saldhigu ay ugu dhaceen guri ay ka heleen xog ku heleen in xayshadaa lagu hayo oo ku yaalla xaafad ka mid a xaafadaha caasimadda hargeysa runtii ciidanka biliisku habeen iyo maalin wuxuu la dagaalamayaa waxyaalaha bulshadeenna iyo mujtamaceenna waxyeelaynaya aad arkaysaan intaasoo caasimadda lagu sii daayaa waxaa weeye waa goob keliya laga helay waxaa laga yaaba in goobo kalena qaar kale loo wareejiyey waxaa lagu soo qabtay 3 eedaysane oo 2 hablood oo walaalo ah iyo nin la joogay waxaa inta muddooyinka ayana gacanta lagu dhigay 800 iyo 2 litir oo u kala qaybsan sidan 30 jirikaan oo kuwa soddonqaadka ah 43 dhalo oo kuwa 45 litriska ah 19 nooca yaryar ee 250 garaam ah tirada guud ee khamrigaasina waxa weeye muddada yar ee kooban waa 900 oo litir waxa weeye dhammaan waxaasoo dhan wixii eedaysanayaashii lagu soo qabtay waxay isugu jiraan kuwa la xukumay iyo kuwa la xukunkoodu socdo runtii waxaan aad iyo aad ugu bogaadinayaa u hambalyaynayaa anigoo maaragtay soo gaadhsiinaya hambalyada taliyaha ciidanka dhammaan ciidanka qaybta gaar ahaan saldhigga ibraahim koodbuur oo muddooyinkan dambe isagu aad u dardargeliyey la dagaalanka khamriga iyo xashiishadda guud ahaan soonaha qaybtu habeen iyo maalin hadda waajibaadkeeyo koowaad waxaa weeye inaannu bulshada kala dagaalanno aafada ugu daran ee ah xashiishadda iyo khamriga oo ay baryahan dambe si xoog leh ugu soo qulqulayey magaalada iyo dalkeennaba daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudanow waxaydun hore u soo daawateen waxqabadkii muuqday ay soo bandhigeen qaybta booliiska galbeedka hargeysa taasi oo ka koobnayd khamrigii xashiishaddii iyo maandooryihii faraha badnaa ee ay ku guulaysteen inay gacanta ku soo dhigaan muddadii 2 bilood ahayd ee la soo dhaafay haatan waxaynu ku sugannahay qaybta booliiska ee bariga hargeysa kuwaasi oo halkan inoogu soo bandhigi doona waxyaabo aad u tiro badan oo run ahaantii markay bulshadu aragto ay aad iyo aad ula yaabi doonto waxaa ka kooban khamrigii xashiishaddii warafyadii laysla dhacayey iyo mindiyihii ay isticmaalayeen dhallinyarada ku dagaalanta kooxaha xilliyada habeenkii xaafadaha magaalada anigoo ah taliyaha qaybta bariga ee hargeysa waxaan halkan ku soo bandhigaynaa saaka alaab kala duwan oo ah exhibitka ay soo qabatay qaybta barigu ee hadday darooga tahay iyo hadday hub tahay waxyaabaha bini aadamka wax u geysta sidaad hortiina ku aragtaan ama maskaxdooda u geysta amba jidhkooda u geysta amba hantidooda lagu dhaco ayaannu halkan ku soo bandhigaynaa si aannu dadweynaha ula wadaagno shaqada aannu u hayno ee boliisku har iyo habeen u taagan yahay oo ah runtii badbaadada nafta muwaadinka somalilanderka halkaa waxaad ku aragtaan maandooriye kala duwan oo ka kooban xashiishad iyada oo kiilooyina iyo iyada oo rubuc iyo wiqyada ah oo taan gacanta ku hayo oo kale ah oo da'yarteennii laga iibinayo oo lacag jaban 40 kun 50 kun laga siinayo oo maskaxdiisu ay gubanayso markuu isticmaalo khamrigii baad aragtaan oo noocyo kala duwan ah waxaad aragtaan maxaan ku dhadaa isbiirtadii oo iyana maandooriye loo isticmaalayo waxaad idiin muuqda lacagtii xashiishadda lagu iibinayey oo bir iyo somalilanba ah waxaasi guryaheenna yaalliin oo lagu iibinaya waxaad kaloo arkaysaan hubkanaan gacanta ku hayo ee hortiinana yaalla ee kala duwan waxaa in ummaddu isla dhacdo oo dadka hantidooda lagu furto oo naftooda lagu waxyeeleeyo ayaa loo tuntay oo loo sitay oo boliisku ka howlgaleen oo ku soo qabteen gaadiidkay saarraayeen hubkani dadkaa sitay oo isticmaalayey guruubbo iska horjeedo weeraraa sitay
waad aragtaan intuu baaxad la egyahay hubkaasi dhibta uu geysan karo haddii shacabka lagu sii dhex daayo waxaan markaa intaa ku darayaa boliisku shaqada uu idin hayaa wataa ayaan leenahay dadweynaha runtii idinkana waxaa laydinka rabaa oon dadweynaha u soo jeedinayaa inaad ku kaalmaysaan waad aragtaan waxaas hortiina yaalla inaad boliiska ku kaalmaysaan ka howlgelidda iyo soo qabashada iyo usoo xog waranka maxaa yeelay dadkani godad kuma jiraan cirkana kama soo dhacaan waxa ay dadkaasi hubka la joogaan oo maandooriyaha ku rogaan oo ka ganacsadaan oo ku dhex nool yihiin waa bulshadeenna marka haddii bulshadu la dagaalamayso oo boliiska usoo xog warramayso oo aynu xidhiir joogtaa leenahay waynu iska qabanaynaa cadowga inagu soo duulay ee gudaheenna waxaa ka samaynaya waxaa ku iibinaya daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan waxaynu soo gaadhnay gabagabadii barnaamijkeennii saaxiibka dadweynaha waa fariinta taliyaha ciidanka booliiska jamhuuriyadda somalilan oo ah ta u qaalisan toddobaadkan barnaamijkeenna daawasho wacan بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaynu soo daawanay waynu si fiican u fahamnay oo aynu garanay waynu dhinac walba ka aragnay waxyaabaha maaragtay shaqooyinka muhiimka ah ka midka ah oo ciidanka booliisku had iyo jeer maaragtay shaqooyinka muhiimku qabto ayaynu daawanay oo aynu fahamnay waxaan odhan karaa arrintaasu inaha ugu yaryar weeye waxyaabo kaloo aada u waaweyn buu boolisku qabtaa taasaynu fahamnay booliskuna wuxuu fahamsan yahay haddaanu dadweynuhu la shaqaynayn oonu garab taagnayn inaanay guushan weyn ee ay gaadheen inaanay gaadheen oo shaqada aanay qabteen boolisku wuxuu fahamsan yahay xubnihiisa saraakiisha ah iyo kuwa sarkaal xigeenka ah iyo kuwa askarta ah rag iyo dumarba waxay fahamsan yihiin runtii waxyaabo dadweynuhu xaq ugu leeyahay muddooyinkan dambena aada iyo aad baa loo update gareeyey oo loogu dhiirigeliyey inay hawshaa qabtaan iyagoo marka horeba shaqadooda ay tahay maxaa dadweynuhu waa laba booliisku waxaynu nidhi barnaamijkan sidee aynu daawanay raggii saraakiisha ay idiin soo sheegeen waxaa la yidhahdaa saaxiibka dadweynaha muxuu dadweynuhu haddaba xaq ugu leeyahay booliska dadweynuhu waa laba waa nin dhibano ah oo booliska maaragtay dhibane u ah xataa qofka caadiga ee nabadgelyada ku nool fiir baa bini aadmiga human beingka fiir waxa la dhaha baqa ku abuuran mar walba xagga cadaaladda xagga booliska ayaa dareenkaasaa jira markaa qofku markuu dhibanaha yahay xaq buu leeyahy markuu eedaysanaha yahay iyo markuu dembiile yahayba marmar baa boolisku rag xukuman hayaaye markaana xaq buu leeyahy dhibanaha markuu leeyahy wuxuu xaq u leeyahay kow marka koobaad horta lasoo qabanayo dhibanaha wuxuu xaq u leeyahay marka koobaad horta uu yimaado booliska u yimaado in la soo dhaweeyo si akhlaaqi ku jirto oo weji furani ku jirto in loo soo dhaweeyo laba in baahidiisa laga jawaabo oo markiiba deg deg loo raaco oo immediately la raaco oo hawshiisii la daboolo taasuna waa ta labaad saddex waxa weeyaan in kiiskiisii si cadaalada loo baadho oo qofka cadaalad la tuso oo kiiskaas si cadaalada loogu baadho ta saddexaadna wataa dhibanuhu intaasuu xaq u leeyahy ninka eedaysanuhu wuxuu xaq u leeyahy kow haddii waaran loo soo jaray in maaragtay loo akriyo oo waaranka la kaa iyo kaa iyo kaa iyo kaasaa lagu haystaa waa kow in meel nadiifa lagu xidho oo xorriyadda lagaga qaado qofkaasu nadiif ahaan u nasto oo goob nadiifa ku noolaado oo xorriyadda laga qaado goob nadiifa kaasuna waa ka labaad saddex in ehelkiisa la tuso oo hadduu cunto u sidiyo hadduu si kaleba waraysanay ehelkiisa la tuso waa saddex afar hadduu bukoodo qofka in dhakhtar la geeyo ama dhakhtar loo keeno shan in muddo dhaafka laga ilaaliyo lix in intuu meesha ku jiro la wacyigeliyo
oo maaragtay diiniyana loo wacyi geliyo maaragtay akhlaaqiyana loo dhiso oo maaragtay la dhiso oo qofka la wacyi geliyo waxyaalahana qofka dhibanaha ama dembiga lagu hela xaq ayaa maaragtay ayaa isna xaq u leh taasuna waxa tacaynkaas ta kale waxa weeyaan qodob waxaan fariin u dirayaa dadweynaha qodobna waxaan fariin u dirayaa nimankan maaragtay baangayaasha sameeya iyo nimanka cidda mukhaadaraadka keenta dadweynaha fariintaan u diraya waxa weeye dadweynaha waxaan aada iyo aada ugu mahadnaqayaa sida quruxda badan ee isu kaaya garab taagaan booliska waxaan ugu mahadnaqayaa sida ay kalsoonida weyn noo siiyeen ee ay noogu soo duceeyaan ee ay jecel yihiin inaanu wanaagsanaano ama inaanu wax wanaagsan qabanno ayaan ugu mahadnaqayaa waxaan se xusuusinayaa booliska dadweynuhu ma wada aha dadka qaar baa kusoo dhiirada oo booliska dhib gaadhsiiya oo dakdakra tusaale ahaan dhacdaa imika 2 bilood ka hor ka dhacday Wajaale dadkii meesha Wajaale wuu mudaharaaday 30 inoo boolisaa joogay 30 ka inan 11 baa la dakhra oo rag ilaa imika jajabay waa dhib booliska soo gaadha waxaan u soo jeedinayaa dadka yar ee farakutiriska dadka ku dhex jira ee arrimaha sameeya ha ka waantoobaan booliska xaq waxa loogu leeyay inaanu dadka caayin booliska waxa xaq loogu leeyahay inaanu dadka gacan u qaadin booliska waxa xaq loogu leeyay dadka inaanu xabad ku ridin laakiin booliskuna wuxuu xaq u leeyahay dadku inay ixtiraamaan ka dheeraadaan sharciuna ay ugu yimaadaan ay sharfaan ninka u soo jeeda ee waxa ay soo daawateen ka hawlgalay ee qabtay ee habeen iyo maalinba u taagan ee saaxiibka dadweynaha waxa ku dhex jira ee dadka yar cadawga inagu qabanaya kuwaasu kamid yihiin waxa laga ururiyay waxa la doonayaa inaan ixtiraamno oo inuu ilaalino taas waa fariinta dadweynaha iyo mahadnaqa dadweynaha fariinta kale diraya waxa weeyaan baangayaasha nimanka sameeya ma dhacayso inta waxa la sameeyo in dadka ku baaranaya ama dadka ku dilaya ama dadka kooxaha iyagu isku dilaya in laga iibiyo ma dhacayso mana yeelayno arinta talaabooyin baanu ka qaadi lama suurta gelayso waxyaalaha aan laga maarmayne bin aadmigu ku faa'iideysanayna sida loo sameeyo cidda laga iibinayo wax gaaray noqon doonta laakiin in qof walba laga iibiyo oo koox isu qaataan oo waxa imika aan ururay intan waa tusaale sidii madaxdii hore sheegtay laba station oo qura way laba saldhig oo qura waxyaalaha xareysan hadda aragtaan ee ama daraaga ah ama waxan midiyaha ama wax kala aad buu runtii dadku murugoonaya ama dadku aad buu xumaanaya akalow samayn doonaa insha Allah waqti dhow xafiiska cabashooyinka oo ay la soo xiriiri doonaan dadweynuhu oo ay iskaga sii xirmi doonaan booliska si ay u soo dhawaato isku xidhnaanta booliska iyo dadweynuhu waxa kaloo samayn doonaa oo halkay xafiiska dadweynuhu iskaga xidhmayaan kowka gobolada waaweyn gobol walba saldhigga dhexe ayaanu ku hor dhijin doonaa sanduuq weyn oo adag oo bira oo dusha ka daloola cabashooyinka ay qabaan dadweynuhu iyo wixii talooyina halkaasay ku guri xafiiskaasaa dabeedna ka soo guran doona kaasaa akhriyi taasuna waa qorshe imika cusub oo insha Allah samayn doono si aanu ujeedadeeduna ay tahay inaanu dadweynaha isku sii xidhanno oo maadaama boolisku adeegayaasha uu yahay dadka amaarta halkii ambeer dhow aanu iskaga sii xidhan inaanu samayno taana waanu samayn doonaa insha Allah waxaan leeyahay kalsooni wanaagsan isku duubni wanaagsan sharaf baanu idin haynaa annaguna waa dadaalaynaa idinkuna waa maaragtay waa garab taagan tihiin wada shaqayn wacan salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh